cilmigeeda laakiin dhowr iyo 10 daqiiqo soo socda insha Allah waxaynu ka hadli doonaa afar arrimood inta waqtigu inoo saabaxo midda ugu horeysa waa bishan xukunkeeda ama miisaanka iyo mansilada ay bisha Ramadaan iyo soomkeedu ku leeyahay islaamka dhexdiisa iyo midda labaad oo ah fadligiisa midda saddexaad oo ah cibaadadan wixii dhaawici kara ama jabin kara iyo midda afraad oo ah waxyaabaha inoo bannaan bishan dhexdeeda ama aan dhib lahayn in la sameeyo dadkuna laga yaabo inay ka shakiyaan bishan xukunkeeda marka la eego waxay tahay waajib way sii dhaafto waxay tahay farad way sii dhaafto waxay noqotay arkaanu islaamkii arkaan islaamka tiirarka islaamku ku taagan yahay weeye ilaahay baa wuxuu fi suurati al-baqara ya ayuha alladheena aamanu kutiba alaykum as-siyaamu kama kutiba ala alladheena min qablikum la'allakum tattaqun dadkii shahaadanayay ilaahay rumeeyay buu rabbi u yeedho wuxuu waxa la idinku waajibiyay kutiba waa erayada tilmaamaya xukunka waajibka ah ee faralka ah bisha Ramadaan soomkeeda la idinku waajibiyay sidii ummadii horeba la idinku loogu waajibiyay wax idinku cusub baaha waxa laga helayana ilaahay uu sheego waa la ka cabsi iyo taqwa nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis dhowraba kaga hadlay bishan xukunkeeda miisaanka leedahay inuu farad yahay laga maarmaanaytay in la soomo waxa cadeynaya xadiiskii Bukhari Muslim ku sugnaa min xadiis Dalha ibn Ubaydillah waxa asxaabigaas nin baa nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam ninkaas su'aalo dhowr nabiga weydiiyay waxa kamid ahaa soom muxuu ilaahay ugu leeyahay aniga waxaad ii sheegtaa soomka inta faralka ah marka nabigu wuxuu ugu jawaabay shahru ramadaan bisha ramadaan baa kugu waajiba illa anta tadawwa shay'an inaad sunna la timaado mooyaan ramadaan wixii ka soo haray waa sunne marka sidii buu ninkii ku tagay marka xadiidkaasi wuxuu nabigu ku cadeeyay bisha ramadaan soomkeedu inuu yahay soom faral ah laaninka nabiga wuxuu weydiiyay soomka faralka ah daliilka saddexaad xukunkiisa cadeynaya waxa way xadiidkii ibn Umar uu warinaya caanka ahaa Bukhari Muslim ku sugnaa buniya al-islaam ala khams islaamka waxa lagu dul dhisay oo uu ku taagan yahay shan tiirarkiisa arkaan islaamka ah waxa kamid ahaa soom Ramadaan bisha Ramadaan soomkeeda tawxiidka salaada zakada soomka xajka marka soom Ramadaan من أركان الإسلام تيرك الإسلام كوكتاعين يهويه وحكلوا يسقونا شنادو دليل كما أفراد عسي عضينا يا ونقنا يا حديث كعان كاست حديث جبريل المتفق عليه البخاري مسلم كسقنا ملك جبريل باوي من رسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابتي سيلا فرديا مركا تلمامية تعليمات بوسيي سيدنا بيقول مركي دمبل هوا ملك جبريل ويدي بي سيقول دينتي نيدن برايا أركان الإسلام كي النبي جويدية وكتشوابي أركان الإيمان كي وكتشوابي هي إحسان كي السمافر كي وكتشوابي وحين قصعنا أركان الإسلام كي أي حديث كاسي وكل رئيس صوم كبشر رمضان مركات دليل هذا قرآني حديث بله وحين نوش يجيان قفك عبادة إذا كتجا يسوق أكسيا يسوق وحضر دار اللهين قفك مسلم يهي إن أنو إسلام كي وحبه وريبين وسكوت دين وكنت كتشرع بشر واحد لا ده فضلي مر الصوم كرمضان فضلي بولاي هاي سيدا وحصة حديث الصحيحة من حديث أبي بكر رضي الله عنه نبي يقول شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة لما براد ما نقصامان نقصانكم بعضه ولما براد العيد عيد رمضان يعيد بشار الله ينادوا الحجة لما معنى علماء كفر السيرانو أجري قودو أدبو لما يستريه وقفك بشار رمضان صوم أجري قيسو لما يستريه بشار عرف الله إلى عمد الحجة قفك حج كلا يمي أجري قيسو لما يستريه إلا لما تيرارك إسلام كذا كتير لبضا بلاد وعكلا الله كفر السيري لبضا بلاد مرقلا ما وضع ناقصان وطوما ما وضع نوضان وهذه بالكمدها إدمانته
bisha ku xigtaa dhammaystirmaysa hadday ramadaan dhimato waa in bishaa kale dulxija iyadu dhammaystirantaa haddii dulxija naaqis tahayna ramadaan baa dhammaystirmaysa tafsiirkaana waa la saaray waxaa ka mid a xadiidka fadliga bishan sheegaya bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan xadiidka caanka ee marar badan maqasheen min xadiidi abi hurayra nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu u bushaarayn jiray ummadda waxa khayrka ah ee ugu soo kordhay buu ugu bushaarayn jiray wuxuu odhan jiray ramadaan baa idin yimi oo bishii barakaysnayda soomkiisu ilaahay waajibiyey albaabadii jannada la furayaa kuwii naartana waa la xidhayaa shayaadiintiina waa la xidhayaa macnaheedu waxa weeye fadligu inoogu bushaaraynayaa bishani ay leedahay marka qofka intaasi isugu hagaageen ee albaabadii khayrkuna u furan yihiin albaabadii sharkuna ay ka xidhmeen waa nacasnimo hadduu jaanis